xaaladda siyaasadeed ee qallafsan ee Soomaaliland iyo ismarin waaga xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda madaxweyne Biixi Cabdi ayaa ah mid aan noociisa hore loo arag muddo 30 sano ka badan oo Soomaaliland ay jirtay ma dhicin in halkani ay xaaladdu kala istaagto dadka intooda badan ayaa la yaaban kuwa kale ayaa baaqi hawada u marinaya iyo mudaharaada ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradku waxaana xaaladaha siyaasadeed ee ay sheegayaan xisbiyada mucaaradku inay aad u qallafsan tahay madax dhaqameedyada kala duwan ee baaqyada diraya baaqyada bulshada rayidka guud ahaan intooda badan ay leeyihiin waa mid madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo isagu talada xukuumaddiisa iyo hoggaanka dalka ay tahay mid uu heegu go'ay sidoo kalena ilaa iyo haatan la leeyahay wax lagu maareeyo dhaliilo aad u tiro badan oo loo jeedinaya kasakow waxaynu eegi doonaa maxay kaga duwan tahay xukuumadihii kala dambeeyay ee Soomaaliland soo maray xukuumadan balse ma jiraan in ay hoggaanka talada dalku iyo sidoo kale hoggaanka ciidamada kala duwan ee Soomaaliland oo haatan intooda ugu waaweyn amba mas'uuliyiinta dalka ugu sareeya uu hogaamiye madaxweyne Biixi ay yihiin saraakiil military oo iyagu xilligii dawladii Maxamed Siyaad Barre ku kacaamay sidoo kalena si weyn haatan ay xaaladoodu u qallafsan tahay marka la eego qacmaha adag ee ay waajahayaan mudaharaadayaasha iyo adayga siyaasadeed ee Soomaaliland haysta ugu horeyn madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu ahaa sarkaal military balse intii dalka dib loogu soo noqday waxa uu bartay dhowr jeer aqoon ka duwan ciidanka waxa uu bartay khilaafka waxa uu bartay xalinta khilaafaadka oo jaamacadda Hargeysa uu ka dhameystay xiriirka caalamiga iyo siyaasadda oo iyadana la sheego inuu jaamacadda Hargeysa uu wax ku bartay balse waxaynu eegi doonaa taxanihiisa kale waa inta badan military waxaana guud ahaan mas'uuliyiinta talada dalka la haneeda iyo taliyayaasha ciidamada dhan ay yihiin military ugu horeyn waxaynu eegi doonaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu yahay sidoo kale shakhsi ku xeel dheer dhinaca militariga Soomaaliland uu joogay kana soo qayb qaatay dhismihii iyo dib u xoreyntii dalka inta badan ku abtirsanayay ciidanka xubnaha aynu eegayno ee ku saabsan militariga isla markaana loo sibir saarayo adayga siyaasadeed ayaa waxa kowka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed oo militariga wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo militariga wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland oo isna ahaa military xilligii dawladii Maxamed Siyaad Barre Soomaaliland intii ay jirtayna aan wax xil ka qaban haatanna ugu horeyso oo ah isna bahda militariga ee xilligaasi wasiirka wasaaradda reer miyiga iyo cimilada ee dhawaan kamid ahayd wasaaradihii ugu dambeeyay ee la magacaabay waa academic military kaynu eegno dhinaca ciidanka kala duwan ee dalka gaar ahaan shanta ciidan ee Soomaaliland ay ka kooban yihiin ciidankeedu gaar ahaan ciidanka Soomaaliland markaynu eegno oo haatan ka kooban 6 qaybood horena u ahaa 5 qaybood oo ciidanka qaranka ee kala duwan ah waxa haatan marka laga reebo taliyaha ciidanka damdamiska shanta kaleba ay noqdeen military taliyaha ciidanka bilayska ee Soomaaliland Maxamed Saqadhi Dabagale waa military taliyaha ciidanka militariga Nuux Ismaaciil Taani taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha waa Axmed Hurre Haariye waana military waxaana uu kamid ahaa jananadii dhawaan la magacaabay Maxamed Xuseen Xiirane oo ah taliyaha haatan ee laanta socdaalka waa military ciidanka asluubta ee Soomaaliland Axmed Cawaale Libax waa isaguna sarkaal hore oo military ahaa inka kale waxa militariga soo raaca haatan barasaabka gobolka Maroodijeex oo isaguna kamid ahaa saraakiisha ciidanka bilayska ilaa madaxweynaha Soomaaliland ilaa iyo barasaabka gobolka Maroodijeex inta u dhaxaysa waana awoodaha ugu waaweyn ee dalka waana markii ugu horeysay ee tiro intan leeg ay noqdaan militariga isla markaana ku abtirsadaan balse xukuumadihii kala dambeeyay ee Soomaaliland ma jirin sidani waa Maxamed Cali Xaashi telefishinka Badda Cas magaalada Hargeysa